salaada ciidul adha oo maanta si wada jir looga ciiday magaalada Mooyaale ayaa maanta si weyn looga ciiday munaasabada ciidul adha garoonka kubadda cagta ee Shawaabar waxayna si diiran la isugu hambalyeynayay munaasabada ballaaran ee ciidul adha isagoo sidoo kale wajiyadooda ay farxad ka muuqato waxaana salaada ka soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka labada dhinac odayaal dhaqameed culimaadudiin uqaal nabadoono iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee wada dega magaalada Mooyaale. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar والذي قدر فهدى والذي أخرج الماء. ugu horeyntii waxaa warbaahinta RTN TV la hadlay gudoomiyaha degmada Mooyaale Bishaar Aadan Kiyato. ciidan ciideed kalena Ilaahay hal gaarsiiyo annagoo nabad qabna oo caafimaad qabna oo wada jir ah Ilaahay hal gaarsiiyaan leeyahay marka kulay culimadii soo agaasintay ciidul adhadan si wanaagsan munaasabadan loo ciiday culimadii soo agaasintana ajar iyo xasanaad Ilaahay ka siiyaan leeyahay ciidanka qaranka iyo ciidanka liu booliska iyo ciidanka maleeshiyada iyo ciidanka boolis federaalka ilaa shalay ku howlana xaaladan ciidul adhada inay nabadgelyada sugaan oo ay adkeeyaan oo ilaa shalay ilaa iyo xalay ilaa maantana ku howlana oo na garab taagnana kulay mahad baanu celinayaa. dhinaca kale waxa iyaguna dhankooda ka hadlay mid ka mid ah odayaal dhaqameedka ee u hambaliyay dhammaan shucuubaha kala duwan ee aagaasi ku sugan. maanta waxa Ilaahay maartay ii waafajiyay inaan ku soo tukado Mooyaale oo ummadan aan la soo tukado ayaa maanta waqtan u helay waxaan leeyahay dhammaan reer Mooyaale oo dhammaan waxaan idinku salaamayaa 124 idinku salaamayaa maanta inaan ciidii oo Carafa maanta halkan ku wada tukunay dadka walaalaana nahay oo la wada degan yahay adduunka maanta waxa lagu noolanayaa maartay haddaan jirin nabadgeliyo oo maartay wax jira ma laha dadka isla degan walaalaha waxaan u soo jeedinayaa dhammaan inay nabadgeliyo ku wada noolaadaan oo maartay dhulkan Ilaahay maartay dadku uu qaadaya dadka shaydaan baa isku dira markastaba maartay dhiig la daadiyay faa'iido lagama keeno oo nabadgeliyo lagu ma helo marka waxa weeyaan dadka markay isjeclaadaan oo walaalnimo ay noqdaan ayaa maartay horumar iyo wax kasta la gaara oo wariyaasheenin aad iyo aad baydan salaamaya dadka wariyaasha oo maartay arintan soo abaabulay aad iyo aad u mahadsantiin baydan leeyahay marka assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh. guud ahaan wadamada islaamka ayaa waxa maanta laga ciiday munaasabada qiimaha badan ee ciidul adha magaalada Mooyaale waxa ay ka mid tahay meelaha si weyn looga xusay munaasabadaasi. Cabdi Fataax Xasan RTN TV Mooyaale.